dhalinyaro loogu deeqay quruxtii u sarreysay ee adduunka taalay. Waxaa la isku dayay in nafta la dhaafiyo, balse uma ay suurtagelin. Waxa uu ka badbaadiyey ummaddan abaaro aan kuwa la mid ah adduunka korkiisa soo marin. magaciisu waa macruuf, balse boqorkii xilligiisii ayaa ilaa maanta lagu guda jiraa magaciisa. Alle ayaa rasuul iyo nebiba ka dhigay, balse dadka qaar waxay ku tirinayaan inuu ka mid ahaa faraacidii dalka Masar soo xukumi jirtay. Waa Nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam iyo boqorkii maamuli jiray xilligiisii. Anigoo hawlaalkan Cabdilmajiid u soo dhawow muuqaalkeena maanta. fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka ku soo biir, like-na saar. qisada Nabi Yuusuf waxay ka mid tahay qisooyinka oo Allah ku sheegay quraankiisa, waana suurad xambaarsan halxiraalayaal ilaa maanta ay ku guda jiraan xalinteeda. culimada ku takhasusay cilmiga aasaarta ama baraadadka iyo kuwa taariikhduba wuxuu koobsanayaa halxiraalaha suuradani laba su'aalood oo kala ah. su-aasha koowaad, maxaa ka jira aragtida ah in Nabi Yuusuf calayhi salaam uu ka mid ahaa faraacintiisa oo xukuntay dalka Masar? su-aasha labaad, kuma ahaa boqorkii waagaas ka talin jiray dalka Masar xilligii Nabi Yuusuf calayhi salaam, kaas oo aanu quraanku sheegin magaciisa? ma ogsoon tahay daawade in xadaaradihii faraacinta ee aadka u tunka weyneed amaba xoogga weyneed zaman amaba waqti ka mid a waqtiyada ay waajaheen duulaano iyo gumaysi ay u geysteen dowlado kale? waxaana jira laba sababood oo inoo caddaynaya arrinkan inuusan boqorka xilligii Nabi Yuusuf calayhi salaam uusan ahayn amaba ahayn faraacintii ka talin jirtay dalka Masar. sababta koowaad, aayadda ku jirta suuradda Yuusuf ee uu Alle ku leeyahay: bismillaahi الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات صدق الله العظيم. sababta labaad, baaritaano ay sameeyeen culimada dhanka taariikhda ayaa ay ku sheegeen in sidii aynu hore u soo xusnay uu soo maray xukunka dalka Masar dad aan faraacinta ahayn, sidaas awgeedna ay melik ama boqor ugu tilmaameen. haddaba aynu caddayno su-aasheenii koobaad ee ahayd Nabi Yuusuf ma ka mid ah faraacintii soo maray dalka Masar, inagoo ka kala eegayna aragtiyada badan ee wax ka yidhi arrinkan. aragtida koobaad waxay tilmaamaysaa inuu Nabi Yuusuf calayhi salaam uu ahaa mid saameyn weyn ku dhex leh xilligaas dalka Masar, sababtoo ah uu fasiray riyadii uu ku riyooday boqorkii xilligaasi ee ahayd 7 sano ee barwaaqada ah ee ay ku xigto 7 sano ee abaarta ahi. aragtidaas oo tilmaamaysa in Nabi Yuusuf calayhi salaam uu yahay Amxuutab, waxayna ku sababeeyeen dhowr sababood inuu yahay Amxuutabkii soo maamulay faraacinta waqti hore amaba ka mid ahaa boqoradii soo maamulay dalka Masar. sababta koobaad ay tilmaameen in Nabi Yuusuf calayhi salaam iyo Amxuutab ay isleeyihiin amaba ay isku mid yihiin, waa isu ekaanshaha ay iskaga egyihiin. Amxuutab iyo Nabi Yuusuf dabeecad ahaan, dhaqan ahaaneed iyo weliba run sheegista uu ku sifaysnaa Amxuutab, taas oo si lamidan ugu sifaysnaa Nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam sida uu noo sheegay qur-aankeena kariimka ahi. sababta saddexaad ee ina tusaysa inuu Amxuutab iyo Nabi Yuusuf xiriir ka dhaxeeyay waa in la weysan yahay qabriyadooda labadoodiba Amxuutab iyo Nabi Yuusuf calayhi salaam ilaa maantana ay cajis gelisay amaba halxiraalo ku noqotay baarayaasha cilmiga aasaarta amaba raadadka. aragtida labaad ee inoo tilmaamaysa in Nabi Yuusuf calayhi salaam ka mid noqday mid ka mid ah faraacintii ayaa ah inuu yahay Akhnaton ama fircoonkii lagu magacaabi jiray Akhnaton, waxayna ku sababeeyeen inuu yahay Akhnaton fircoonkii ugu horreeyay ee ugu yeedhay tawxiidka dalka Masar. waxayna ku sii dareen aragtidaas inay xilligaas uu xukumayay dalka Masar ay ka dhaceen abaaro dalka Falastiin iyo dhulka Shaam qayb ka mid ah. balse waxaa jira aragti kale oo toos u diidaysa amaba ka soo horjeeda, sheegaysana in aanu Akhnaton aanu ahayn Nabi Yuusuf calayhi salaam, waxayna kaga soo horjeesatay aragtidani. sawir gacmeedka Akhnaton ee ay faraacintu sawireen ayaa ahaa mid aan lahayn quruxdii uu quraanku inoogu tilmaamay Nabi Yuusuf calayhi salaam, quruxdaas oo ay ku fitnoobeen gabadhii uu qabay boqorka iyo dumarkii kale ee u yeedhay. haddii aynu ka nimaadno su-aasheenii koobaad ee aynu soo galno su-aasheenii labaad ee halxiraalaha amaba suuraddan halxiraalaha ay waday ee ahayd inuu ahaa boqorkii maamuli jiray dalka Masar xilligii Nabi Yuusuf calayhi salaam. sida aynu bilowgii muuqaalkeena ku soo xusnay, waxaa jirtay xilli ay wiiqantay oo ay daciiftay awooddii faraacinta ee ka talin jirtay dalka Masar, gaar ahaan boqortooyooyinkii qarniyadii dhexe, waxaana duulaano isdabajooga ku soo qaaday kooxo lagu magacaabi jiray Hyksos, kuwaas oo baroosinka ku aastay dalka Masar amaba deganaa muddo dheer iyagoo weliba ka talinayay. haddaba yay ahaayeen dadkan kusoo duulay dalka Masar ee lagu magacaabi jiray Hyksosku? waxay u kala qaybsamaan aragtiyooyinka tibaaxaya amaba sheegaya Hyksosku laba aragtiyood
aragtida koobaad waxay ahaayeen Hyksos dad ka soo jeeday ayna leedahay baadiyaha ama miyiga bartamaha iyo bariga Aasiya iyagoo ka soo duulay xilli ay Masar hadhaysay ama ay ku jirtay xaalad daciifnimo ah oo dhanka ciidanka ah waxayna xukunka dalkaas hayeen muddo dhan 100 sano aragtida labaad ee inoo sheegaysa ama asalka dadka Hyksos ayaa ah inay ahaayeen dad Carab ah kuwaas oo ka soo kala jeeday dalka Filistiin iyo dhulka Shaam kuwaas oo aanay badanka dadka wax ka qora taariikhda aan wax badan ka qorin waxaanay dalka Masar xukumayeen muddo dhan 300 oo sano intaas hadayna kaga gudubno labada aragtiyood inoo sheegay waxay ahaayeen Hyksosku waxay Hyksosku ku tilmaanayeen oo ay caan ku ahaayeen inay ahaayeen dad ku xeel dheera la tacaamulka xadiidka waana dadkii ugu horreeyay ee sameeyay carabada ama gaariga labada taayir ee amaba sheeg tan idin muuqata ama shaashadeedii ka muuqata kuwaas oo lagu xirayo faraska waxaana fuuli jiray laba nin oo midna dagaalamaya ka kalena oo hoggaanka u hayay carabadan ama faraska waxaana ay Hyksosku ahaayeen oo ay ka soo horjeedaan Masaaridu waxay yeelay ama sababtoo ah ay ahaayeen Hyksosku kuwa soo duulay dhulka Masaarida lana dhaqmo Masaarida si ka baxsan bilaadatinimada waxayna kala kulmi jireen dagaallo ay soo qaadi jireen qayb ka mid ah Masaaridu ugu dambeyntiina waxa ka saaray Hyksoska dalka Masar nin lagu magacaabi jiray Axmas al-Awwal ama Axmaskii koobaad waxaana uu ahaa mid horumariyay hubka ay kula galayaan dagaalada Hyksoska uu kaga adkaaday dagaaladii Hyksoska lana wareegay xukunkii dalka Masar wax badan lagama hayo dadka lagu magacaabi jiray Hyksoska waxaan ka ahayn inay ahaayeen 3 qoys oo ay u qaybsamayeen boqoradii Hyksoska kuwaas oo ka talin jiray dalka Masar qoyska koobaad waxa qoyskii 15aad ee xukunka ka qabtay dalka Masar ee soo mara waxaana soo kala qabtay 6 boqor oo qoyskaas ka tirsan qoyska labaad waxa qoyskii 16aad waxaana soo qabtay xukunka qoyska 32 boqor kuwaas oo xukumayay dalka Masar qoyska saddexaad qoyskan waxa qoyskii 17aad isna waxa xukunka dalkan ka qabtay 43 boqor oo noqday qoyskii ugu dambeeyay ee uu ku soo xidhmo ama dhamaado xukunkii Hyksosku ku dhafka ama saddexgalka taxanaha ee Hyksoska ayaa ka dhigay hal xidhaale aan ilaa maanta la furin magaca boqorkii talada xukunka hayay dalka Masar xilligii Nabi Yuusuf calayhi salaam laakiin waxa uu qabaa taariikhyankii lagu magacaabi jiray Maxamed Ciise Darwaza oo uu ku qoray kitaabkiisii Mawsuucatu Taariikh Jins al-Carab in Axmed Kamaal Baasha oo ka mid ahaa culimadii dhanka raadadka dhulka ee dalka Masar uu yiri in Nabi Yuusuf calayhi salaam uu la baayactamay ama heshiis la saxeextay boqor lagu magacaabi jiray Abiib al-Awwal kaasoo ku magac dheeraa Abu Fasl al-Awwal waana boqorkii ka soo daayay jeelka Nabi Yuusuf calayhi salaam kuna aamina dhaqaalaha dhulkaas dalka Masar ama ka dhigay wasiirkii dhaqaalaha hadii se aan ahayn xitaa mid xukunka qabtay uu yahay boqorkii xilligaas Nabi Yuusuf calayhi salaam xukumayay ama dalka talada hayay muuqaalkana maanta taas ku eegyahay intaan ku kulmayno muuqaalka waxay ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo